بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. taas kadib dhacdooyinkii ugu badnaa ee aan la kulmaynay safaradii ugu wanaagsanaa ma aysan ahayn kuwa horay noogu jadwalaysnaa. Ilaahay ayaa noo kaxeeyay ballan la'aan noona qadaray subxaana. Maalin annagoo joogna Sri Lanka waxaan dhex maraynay hoodka si aan u booqano tuulooyinka ka mid ah. Waxaan maqalnay tuulo oo aan jeclaysanay in aan booqano. Tuuladan inta ugu badan dadkeeda waa ay islaameen. Waxaan doonnay in aan gaarno, balse dhibaatada waxay tahay waddada maritaankeeda ayaa adag. Waa inaad martaa dhinacyada buuraha iyo hoodka dhexdiisa. Xitaa mararka qaar gawaarida ciriiri ayay galayeen. شوف جحور الحيوانات بين لك إن في بلاوي. wal ayaa galay howlwadeennada mana eedeynayo waayo goobta aamin ma aha. dhibaatada ugu adkaydna waxay ahayd markii gaari kale uu waddada kaaga hor yimaado, waayo waddadan si sahlan laba gaari iskuma dhaafi karaan. Haddii mid ka mid ah gawaarida uu qalad sameeyo, waxaa la arkaa gaarigeena in uu buurta ka dhaco, waayo gaarigeena ayaa xigay dhanka buurta, balse Allah ayaana badbaadiyey subxaanah. Annagoo sidaa ku sugan waxaan arkay oday da' ah oo ul ku socda haddana hitinayo. Waxaan ka codsaday tarjumaanka oo magaciisa ahaa Ra'iis inuu ila dago si aan ula hadlo odayga. Waxaa la yaab ahayd in aan waddada ku soo maray odayaal badan oo da' ah, balse aanan u istaagin, waayo haddaan sidaa yeeli lahaa meel ma gaari lahayn. Balse waxaa jiray dareen iigu yeerayay in aan odaygan da'da ah la hadlo, mana aqaan sababta. Halkuu u socdaa? waxa uu u socdaa dukaan uu ka soo gato rooti. da'diisana waa 81 jir. Ma 81 jir? haa. Hadda masaafo intee ah ayuu soconaa? meeqa daqiiqo? ku dhowaad 2 kiiloomitir ayuu soconaa. qof da'dan jooga oo subax walba baxa si uu u doonto rooti uu ku noolaado, oona soconaya maalinkii oo dhan, markii uu gaaro meeshii haddana soo laabanayo habeenkii maahane xilli kalena aan imaanayn. midaan ma nolol baa? tani ma xaalad uu qof bini'aadam ah ku noolaan kara miya? ilaa goormee? ilaa 10 sano ayuu xaaladan ku sugan yahay. wuxuu leeyahay lugtan ayaa i xanuunaysa, mas ayaana iga qaniinay. لدغه ثعبان. أيوة. ولهذا هو تعب. هو يستريح هناك ويجلس ويرجع. نعم ما يقدر يمشي على طول. نسأل الله يعينه. diintiisu waa Hinduu, wiilkiisa wuu islaamay, balse asaga ma uusan islaamin. waxaan isku daynay in uuna raaco si aan islaamka ugala hadalno, balse wuxuu ka baqayay in uu dhaafo rootigiisa maalinlaha ah. u sheeg in uuna raaco, rootiga uu doonan lahaana annaga ayaan siinayno insha Allah. waxaan rajaynayay inuu islaamo. sida badan odayaasha si sahlan uma bedelaan qanacsanaantooda. waa dhalinyarada cagsigooda, waayo sida aad arkaysaanba wiilkiisa wuu islaamay, asagana ma uusan islaamin. markaan eego oday da' ah 80 dhaafay, socdana dacas la'aan, si uu u soo gato rooti u arko inuu yahay quudkiisa maalinlaha ah, wallaahi waa arrin qalbiga dhaawacayso. habdhaqanka wanaagsan iyo in aadan iskala weynaan oo aad la socoto waa waxyaabaha saamaynta ku yeelan kara oo xaggiisana kuu dhoweyn kara. waxaan bilownay in aan u sharaxno islaamka, hadalkeennana waxaan dhadhan ugu yeelaynay in aan u muujino naxariis. u sharax islaamka in uu yahay tawxiid iyo cibaado, iyo alla mooyee cid kalena aan la caabudin, allana uu soo diray rasuulkiisa Muxamed sallallahu calayhi wasallam. waxaan rajaynayaa asagoo cimrigiisa dhammaadkiisa marayo in alle uu ku badbaadiyo sababteena. alle ayaana hanuuniya qofka uu doono. ilaahay ayaan u weydiinaa in uu laabtiisa islaamka u waasiciyo, waxayna noqonee khayr badan haddii uu aqbalo insha Allah. walaalayaal bishaaradan iga qaata. ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulu Allah.
الله أكبر الحمد لله الحمد لله الله أكبر. wallaahi suuragal ma aha in aad malaysaan dareenkeena annagoo arkayno asagoo shahaadada ku dhawaaqayo. waxaan dareemay inuu yahay waalidkayga, anna aan ahay wiilkiisa jeclaa inuu islaamo waalidkii. maxaan ugu dadaalayay inuu islaamo? waxaan jeclaa inuu islaamo si haddii islaamkiisa uu wanaagsanaado uu alle u qadaro janno, dhibaatada adduunkana ugu bedelo barwaaqo janno. rasuulka sallallahu calayhi wasalam wuxuu dhahay qiyaamaha waxaa la keenayaa qofka adduunyada ugu dhibaatada darnaa, markaas ayaa jannada la tiimbinayaa hal mar, kadib ayaa laga soo bixinayaa. waxaa la leeyahay wax dhibaato weligaaga ma aragtay? markaas ayuu ku jawaabayaa, rabbiyow weligayga wax dhibaato ma aanan arkin. allaahu akbar. soonka daalkiisa iyo qiyaamuleylka daalkiisa iyo dhibaato walba iyo barobaleem walba oo kugu dhaco ma aha sannado iyo bilo inaad ku jirta jannada, ee hal mar oo lagu tiimbiyo. waa hal mar oo jannada lagu geliyo ayaad ku iloobaysaa wax walba. insaanku wuu inkirayaa in weligii uu la kulmay wax ka nixiya oo argagixiya. waa hal mar jannada la tiimbiyey ayuu ku iloobayaa. bal ka waran siduu noqonayaa qof weligiisa ku waarayo. ilaahuw naga mid yeel jannada ehelkeeda. ilaahuw kitaabkeena midigta naga sii. ilaahuw xisaabta noo fududay. ilaahuw siraadka maritaankiisa ilaahuw noo sakhir. ilaahuw rajooyinkeena ka dhig jannooyinka sare. ilaahuw waxaan ku weydiisanaynaa inaan ka cabno darkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam. ilaahuw rasuulka jannatulfirdowsa diris nagala dhig. ilaahuw waxaan ku weydiisanaynaa inaad jannada ka dhigta meesha aan u dambaynayno. ilaahuw naga mid dhig dadka harsada carshigaaga hooskiisa maalin uusan jirin hoos ilaa carshigaaga hooskiisa maahe. annaga iyo waalidiinteena, xaasaskeena, carruurteena, walaalaheena iyo asxaabteena oo dartaada inoo jeclaadeen, annagana aad dartaada u jeclaanay. yaa arxam arraaximiin.